runtii kulankan maantaan halkan isugu nimid wuxuu ku soo aaday xilli loogu baahi badnaa oo ahayd inaan ka arrinsanno waxa deegaankan aan ka soo jeedno ee galmudug ka socda oo ay ku hayaan cadowga koowaad labaad ee saddexaad ee khawaarijta al-shabaab kuwaasoo dhib ka ugu weyn ay ku hayaan gobolkan aan joogno runtii culimadii siyaasiyiintii iga horreeyey waa ka wada hadasheen dhibka ay ku hayaan khawaarijta dalkeenna saan la soconno qof kastoo halkan fadhiyo qof kastoo Soomaaliya joogo meel kastaba khawaarijta al-shabaab dhibkay u geysata ma yaro runtii waxa ayaan darro ah dadka iyo shacabka ka soo jeedo deegaankan galmudug in ehelkoodii walaalahoodii qaraabadoodii hortooda lagu laayo caruurtoodii aan qaan gaarin hortooda lagu wato oo dagaal la geliyo gabdhahoodii dumarkoodii ay ku faani jireen laga wato oo hortooda lagu xalaalaysto ay la tagaan deegaanada ay maamulaan waa ayaan darro aad iyo aad u xun waxaa iyadana tusaale u soo qaadan kara haddii laga reebo adeer cabdi qaybdiid awoowayaasheen ka soo jeeda galmudug maanta hadday halkaan imaan lahaayeen ayna arki lahaayeen duruufaha aan ku jirno iyo sida wiilashoodii awooyaha ay u yihiin loo galayo runtii dhaar waxay ku mari lahaayeen inaysanna dhalin gacmaha suuka ay kor saaran cilaan baa noo marsan diyaar uma nihin dagaal ayay arkayaan marka waa ayaan darro waa in fadhiga aan ka kacnaa runtii waa dagaal xaq ah oo xalaal ah qofkii ku dhintana oo Allah subxaanahu wa ta'ala u tahay inuu cibaadadiisa u guto marka waxaa idinkula talinayaa ha loo istaago imaanshaha aan halkaan imadna waa garb istaag inaan diyaar u nahay inaan frontierka ama jiidda ugu horeysa dagaalka aan idinla tagno dhammaanteen sidaas ayaan halkaan ku nimid waxaan rabaa sidoo kale inaan u bogaadiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii ay ka go'an tahay maanta in lala dagaalamo argagixisada al-shabaab siday khawaarijtu mar kasta ay sheegaan waxay yiraahdaan waxaan nahay kalluun biyaha ku nool kalluunka waa annaga biyahana waa shacabka maanta biyihii ayaa kacay oo shacabka ah diyaar ayay u yihiin inay iska qabtaan shabaab waa inaan fursadaas ka faa'iideysanaa oo aan u istaagnaa oo aan hoggaankaagii madaxweyne qoorqoor aan dabagalnaa gacanna kugu siinaa aniga ka ra'iisul wasaare hore maxamed xuseen diyaar ayaan u ahay waqti kasto meesha jiidda ugu horeysan inaan tago diyaar ayaan u ahay waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta Soomaaliyeed mid xil hayo iyo mid aan xil hayinba dhammaanteen dalkan wuu naga dhaxeeyaa shacabkan way naga wada dhaxeeyaan kala duwanaanta siyaasadda wax macno leh ma lahan maanta shacabkiyaa diyaar ah qof kastoo siyaasi ah waa inuu dalka yimaadaa shacabkiisa u yimaadaa dowladdiisa garab siiyaa ciidanka qalabka sida garab siiyaa si looga hortago loo baabi'iyo cadowgan dalka haysto meel kastana ku faafay ee argagixisada khawaarijta marka waxaan leeyahay qof kasto maanta waa inuu yimaadaa dalkan oo siyaasi ah madaxweyne waa ku mahadsantahay soo dhaweynteeda qiimaha leh anigana sidoo kale gobollo kalena waa tegayaa laakiin gobolkan waa buddhigaygii diyaar ayaan u ahay waan igu tashanaysiin hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo